shakhsi magaciisa lagu sheegay sheegow oo ahaan jiray dhamme ama kabtan ka tirsan ciidanka xoogga dalka Soomaalida laakiin hadda maanta aan ka tirsanayn iyo ciidankaasu gurigiisa joogeen markii ciidankii la soo qabtay oo la xiray ayaa shakhsigii wuxuu soo abaabulay ciidan kaleeto si uu amnigii iyo xasiloonidii uu qalqal u galiyo uu u yiraahdo ciidan shaqo igu jira laga dhibaatiyay taas waxay sababtay in ay isku dayaan in yiraahdaan ciidanka howlgalka ciiltire ayaanu la dagaalamaynaa sidaas ayaa howlgalku ku bilowday sareynta sharciga ahaa maantana falilaahi alxamdu waxaa gacanta lagu soo dhigay ex dhamme sheegow axmed cali oo hore uga tirsan jiray ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed gacanta lagu hayaa eedeysana sheegow iyo ilaa 18 kamid ah eedeysanayaashii ama dhagarqabayaashii uu isticmaalayay si uu amniga xasiloonida iyo caasimadda u qalqal galiyo isaga kaliya maahana cid walba oo isku dayda in amniga xasiloonida ummadda Soomaaliyeed gaar ahaan magaalada caasimadda ay nawaaxigeeda qalqal galiso ciidamada ammaanka gaar ahaan ciidanka howlgalka ciiltire ee booliska military ciidanka booliska Soomaaliyeed iyo ciidanka hay'adda nabadgelyada iyo sirdoonka waxay gacanta ku soo dhigayaan waxaana la horgeyn doonaa maxkamadda awoodda u leh qasaaraha meesha ka dhacay waa laba qof oo laba maleeshiyaadkii uu isticmaalayay eedeysana sheegow oo laba dhimasho ah hal askari oo ciidanka howlgalka ku jira ka dhintay dhaawacyaduna sidaas oo kale waa 2 iyo 2 ma jiraan wax qasaaraha oo dadka shacabka ah soo gaaray oo goobta ka agdhawaa howlgalkii xalay 9kii fiidnimo bilowday inuu saaka 3dii subaxnimo 9kii subaxnimo soo gabagaboobo falilaahi alxamdu waxay ku timaaday in la ilaaliyo qasaaraha oo dadka shacabka ah aysan meesha waxba ka soo gaarin sababtaas ayuu ilaa inta u socday haddana eedeysanihii iyo dhagarqabayaashii kale gacanta lagu hayaa waxaa dhaawac ilaa 7 qof ayaa eedeysanaha dhaawac ka ah oo iyagana eedeysanayaal ah iyagana dambi bay galeen waxay mari doonaan cadaaladii mari doonaan laakiin waxay xaq u leeyihiin in la ilaaliyo xuquuqdooda isla markaana ay helaan gargaar caafimaad helaan gargaar caafimaad loo fidiyay ciidamadana gacanta ku haya haddana waxaa lagu dabiibayaa goobaha caafimaadka